بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسور دوادا ورك تلفزيون كعلمك بيوس وركو عندك كجيمنا يا حرون تدحي وتلفزيون كل يوم قلنا مقدشو بعد ذا نسعى سنتون تهدوا لا ودري كرر نقدون وقدر على شيء معلا قدر كده وانتون تانا داوديال واحد كم ده دولة ده سوماليا تركيا وكواد على حوجين تحرير إسكاشجا أمنيجا يدفاع كدحي اللي بدأ الدولة دود دومينكو حقين كودي قدروشوين كهر فدرال ومانتي قاري مقالة جوهري عاصمة مامل كهير شبل taliyaha ciidanka dhulka xooga dalka Soomaaliyeed oo kormeer ku sameeyay fariismo ciidanka xooga ay ku leeyihiin gobolka Shabeellada Dhexe madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Ismaan Kraash oo gudoomiye kulan looga hadlayay maamul baahinta Puntland wafdi hogaaminaya madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle oo gaaray magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle howlgalo lagu xaqiijinayo amniga oo maanta laga sameeyay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle xildhibaan Daar Amiin Jeeso oo si kul looga hadlay dilkii Ikraan Tahliil oo ay sheegtay in Nisaa in al-shabaab dileen wararka Soomaalida ka baxsan ee warkan ku daawan doontaan daawadayaal waxa kamid ah dawladda Mareykanka cunaqabateyn ku soo rogtay xubno ka tirsan sirdoonka dalka Iran waa tahay daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warkan ugu door karoona tan u diyaar garoobaha qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan aan ku bilowna dawladda Soomaaliya iyo Turkiga oo ka wada hadlay xoojinta iskaashiga amniga iyo difaaca ee ka dhaxeeya labada dawladood faafahinta warkaasi waxa la diyaaraa Xasan Anteeno wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dawladda federaalka Soomaaliya iyo wasiirka gaashaandhigga dawladda Turkiga oo kulan ku yeeshay dalkaasi Turkiga wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi Turkiga waxa uu kulan kala qaatay dhigiisa Turkiga ee Hulus Akar oo ah wasiirka gaashaandhigga dalkaasi Turkiga wasiirka gaashaandhigga dawladda federaalka Soomaaliya ayaa booqasho rasmi ah waxa uu ku joogaa dalkaasi Turkiga waxaana kulankan ay ku yeesheen labada mas'uul ay uga wada hadleen xoojinta xiriirka iskaashi ee ka dhaxeeya labada wasaaradood iyo kordhinta taageerada iyo tababarada ciidanka ee dawladda Turkiga ay la garab taagan tahay dawladda federaalka Soomaaliya wasiirka gaashaandhigga dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu kaga mahad celiyay dawladda Turkiga taageerada hagar la'aaneed ee ay la garab taagan yihiin dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed waxaana uu tilmaamay in saraakiisha iyo ciidamada lagu tababaro dalka Turkiga ay kaalin muuqata kaga jiraan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sidoo kale ay qayb ka yihiin la dagaalanka ay kula jiraan dagaalamayaasha xarakada al-shabaab wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa horaan gudaha dalkaasi Turkiga waxa uu tababar ugu soo xiray saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo muddo tababar ku qaadanayay dalkaasi Turkiga gudoomiye ku xigeenka guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa maanta gaaray magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle Aadan Cali Axmed hayno aan baqaado gudoomiye ku xigeenka guddiga doorashooyinka heer federaal Mawlid Mataan iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Jowhar ee caasimadda dawlad goboleedka Hirshabeelle ujeedka wafdigan ay magaalada Jowhar u tageen ayaa ah dardargelinta arrimaha doorashada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee dhawaan la filayo in lagu qabto magaalada Jowhar gudoomiye Mataan iyo wafdigiisa ayaa waxa Jowhar ay kulan kula qaateen guddiga maamulaya doorashooyinka xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku meteli doona dawlad goboleedka Hirshabeelle xogayaha guud ee guddiga doorashooyinka Hirshabeelle Maxamed Xuseen Xayti ayaa markii uu kulankooda soo idlaaday warfideenka la wadaagay qodobadii ugu muhiimsanaa ee ka wada hadleen labadan guddi ee doorashooyinka maanta ay tahay 4 bisha September 2021 waxaan joognaa magaalada Jowhar waxaan ku soo dhaweynaynaa xubno kamid ah guddiga doorashooyinka ee federaal oo hogaaminayo gudoomiye ku xigeenka Abukaat Mawlid Mataan waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweyno magaalada Jowhar oo aan rajeynayno usbuucan ama maalmaha inagu soo aadan inaan ka qabano doorashadii aqalka sare si ay korjoogto iyo maxaa la yiraahdaa hawsha loo igmaday maxaa la yiraahdaa qabashada doorashada ah inay goobjoog ka noqdaan kormeer iyo korjoogtiin iyo roolkii kula haayeen bay ka qabtaan waxa marka halkan si baaxad ugu soo dhaweeyay guddiga doorashooyinka ee heer dawlad goboleed Hirshabeelle anagoo xubnihii guddiga doorashooyinka ee Hirshabeelle waxa farxad ay noo tahay inaan soo dhaweyno guddiga inaga sareeya ee federaalka oo xubnaha uu hogaaminayo Abukaat Mawlid oo gudoomiye ku xigeenka ah waxaan jeclahay insha Allah taala si qurux badan inay noogu dhacdo doorashada oo maalmaha soo socdo doorasho ka duwan midii ka dhici jirtay isteediyada kale aan ka qabanno oo qof walba maxaa la yiraahdaa daneynaya doorashadan sida madaxweynaha
maamulkaba uu sheegay inuu ka qaybgeli karo shuruudaha soo buuxiyo annagana waxaan rajaynaynaa maadaama aan guddigii nahay inaan fududayno howl iyo doorasho qurux badan. ugu dambeyntii gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer federaal Mawlid Mataan ayaa warfidiyeenka waxa uu ugu warbixiyay waxyaabaha uu ku qotomo safarkan ay ku yimaadeen magaalada Jowhar. bismillaahir rahmaanir rahiim maanta ay taariikhdu tahay 4 bisha 9 2021 waxaan nimid magaalada Jowhar oo aad ogtihiin in maalmahan ay ka socotay qabanqaabada doorashooyinka loogu diyaar garoobayo aqalka sare xubnaha aqalka sare ku matali lahaa Hirshabeelle. runtii waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa guddiga doorashooyinka heer federaal iyo madaxtooyada guud ahaan iyo maamulka reer Hirshabeelle waxaan uga mahad celinaynaa sida quruxda badan ay noo soo dhaweeyeen. runtii waxaan aad iyo aad u rajaynaynaa oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baryaynaa hawsha halkan looga diyaar garoobayo inuu si qurux badan Ilaahay maaragtay soo gabagabeeyo oo si wanaagsan inay noogu qabsanto. waxaan ognahay in maalmaha soo socda ay ama xilliyada dhawey u dhici doona in liisaskii la soo gudbiyay murashaxiinta u tartamaya aqalka sare sidoo madaxweynuhu hore u ballan qaadayna ay noqon doonto doorasho daahfuran oo loo siman yahay oo reer Hirshabeelle oo dhan ka farxi doonta iyo guud ahaan dalka. waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad muxuu ahaa u mahad celinaynaa guddiyada howlaha ku howlan oo aan ognahay duruufo gaar ah inay ku shaqaynayaan. annaguna waxaan u nimid inaan waajibaadka nooga aadan ka gudanno haddii aan nahay guddiga doorashooyinka heer federaal. maalmaha soo socdana waa sii joogi doonaa hadduu Ilaahay idmo shaqadaas ayaan u nimid. aad iyo aad u mahadsantihiin. aadan cali axmed VOS TV magaalada Muqdisho. taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa kormeer ku sameeyay fariisimo ciidanka xoogga ay ku leeyihiin gobolka Shabeellada Dhexe. faafahinta warkaasi waxaa la diyaaray Yuusuf Maxamed Axmed. taliyaha ciidamada lugta xoogga dalka Soomaaliya Generaal Biixi oo uu hogaaminayo saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa kormeer indhendheena waxay ku sameeyeen jiidaha hore ee dagaalka ah ee ciidamada xoogga dalka kaga sugan yihiin qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe. taliyaha ciidamada iyo xubnaha kale ee saraakiisha ah ee socdaalkiisa ku weelinayay ayaa kormeer indhendheena waxay ku tageen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe oo ay fariisin ciidan ku leeyihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. taliyaha ciidamada dhulka xoogga dalka Generaal Biixi oo ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya kula kulmay jiida hore ee dagaalka ayaa waxa uu u jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa isagoo sheegay in ciidanka looga baahan yahay inay gutaan waajibaadka saaran. taliyaha ayaa sheegay inaysan suurtagal marnaba ahayn in ciidanka ay ku milmaan qabyaaladda isla markaana ay u midoobaan sidii ay isaga caabin lahaayeen dagaalka ka dhanka al-shabaab. anu waxaan soo gaaro raagaceelle iyo dhulkaas soo gaaray hal qof oo shacab aan qori haysan oo nabadgelyo ah hal qof oo aan hal qori haysan basoolad haysan qorina wuxuu ku aruursanaa gacanta dawladda iyo gacanta ciidamada. dhulkii sidaas ahay oo nabadgelyada ahay oo diinta haystay oo aan u malaynayo dhul ka diin badan inay yar tahay dadka inta ku soo duulay ummadii oo dhan hub ka wada dhiibay oo dagaalka geliyay oo cid walba gowracaya ma ayaga islaama mise annaga islaama annaga islaama annagu qofaan xaq darro ku gowracaynaa ma jirto. waxaa laydinka rabaa dalkiina inaad difaacataan. dalka maxaa lagu difaaci karaa waa midnimo. Soomaali oo mid ah dalka difaaci karta. annaga oo askarinimada aan u dhaaranay ka run sheegnana waa difaaci karnaa. Yuusuf Maxamed Axmed VOS TV Muqdisho. madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa shir gudoomiye kulan looga hadlayay maamul baahinta Puntland. faafahinta warkaasi waxaa mar kale eegaya Aadan Cali Axmed. kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ahna madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa maanta shir gudoomiyay shirka wada hadalka dowladda dhexe iyo dowladaha hoose ee maamulkaasi Puntland kaasi oo looga hadlayay maamul baahinta Puntland. shirkan oo ay soo qabanqaabisay xafiiska horumarinta arrimaha maamul baahinta ee Puntland oo ka mid ah xafiisyada madaxweyne ku-xigeenka ayaa looga hadlay daadejinta adeegyada asaasiga u ah sidii dowladda dhexe qoonda lacageed ugu jaangoon lahayd horumarinta degmooyinka iyo waliba dhisidda golayaasha deegaanka ee degmooyinka. kulanka ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay wasiirada wasaaradaha bahwadaagta laha mashruucan horumarinta degmooyinka ee maamulkaasi Puntland. kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ahna madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa madashaasi waxa uu ka jeediyay hadallo kooban. hoosh baan ugu daadageynaa haddii aan la yidhi qoladaatan
xafiiska madaxweyne ku-xigeenka champion office-ka ma filayo kama aan filayn inuu iska noqdo daawade ama shirarka inuu maxay tahay moderate gareeyo laakiin waxaa loo baahnaa waxyaabaha cabashooyinka inuu ka markhaati furo oo wixii looga baahnaa xafiiskan isaga ay maanta wixii la gaari kari waayo waa meeshooda laakiin inuu xafiiskan isaga ahay inuu maanta maxay tahay hawsha uu ku leeyahay ka qabsado ayaan filayay waana iman doontaa haddii alla yidhaahdo runtii shirkii inoogu xigay intan wuu ka weji wanaagsanaayo waxaan filayay kolley waynu wada doodi doonaa maanta haddii alla yidhaahdo meel wanaagsan bay inoo joogto waxaa la sheegayey in wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadku inay labadaba meel wanaagsan wax marinayaan baan shirkii inoogu xigay uu maxay ahatay halkaasay inoo taagnay ma filayn horumar baan filayna maanta iyo wixii dhiman oo aynu dhammaystiro ama meel gaadhsiino aad iyo aad baan uga xumahay waynuna xisaabtamaynaa haddii alla yidhi sida axmed sheegayana u kala kici mayno dowladaha hoose runtii magaalooyinka waaweyn oo kale waxaan filayay maanta inay iyagu isku filan yihiin oo ku filan yihiin shaqada lagu wareejiyo ay ku filan yihiin waan maqlayo wasaaradaha cabashooyinka imaniyo degmooyinka qaar waxay moodayaan in meesha baabuur iska rogaa lagu soo rogayo wixii laakiin markii ay noqotay waxyaabo aan oo khaasatan weliba laga yaabo bahalkan la yidhaaho dib u dhaca kan mashaariicdii oo uu coronaviruska oo kale iyo uu keenay meel qallalan oo aan siday filayeen ahayn markaan ku wareejinay waa ka soo boodeen baan haystay anigu degmooyinkii qaarkood marka insha allah waxaan rajaynayaa maanta waa u wada fadhinaa waa doodaynaa waa maxay ahatay waa isqancinaynaa waxaan rajaynaynaa maanta inaynu meel aynu ognahay oo madal ah aynu kaga tagno mashruucan isaga ah iyo wixii ka dhiman dhammaystirkiisa aad iyo aad baad mahadsantihiin wafdi hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa maanta gaaray magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle wafaahinta warkaasi waxaa mar kale dheereynaya Xasan Anteno wafdiga madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxaa qayb ka ah madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cosoble iyo xubno mas'uuliyiin ah oo ka tirsan maamul goboleedkaasi Hirshabelle xildhibaano wasiiro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka Hirshabelle gaar ahaan magaalada Jowhar ayaa madaxweyne ku-xigeenka halkaasi ay ku soo dhaweeyeen walaalayaal aad iyo aad mahadsantiin ujeedka hadalkeenu wuxuu yahay wafdigii madaxweyne ku-xigeenka uu hogaaminayay ee ka yimid Beledweyne ayaan ka mid ahayn aad iyo aad loo soo dhaweeyay waa ku faraxsanahay sidii loo soo dhaweeyay safarkeenu wuxuu ahaa laba ujeedo inaan ka soo qayb galno doorashooyinka Hirshabelle ka dhacayo ee sanatarada lagu qabanayo Hirshabelle iyo wada tashiyo aanu nimid tabashooyinka ka jira Hiiraan si aan uga tashano madaxda Hirshabelle dhamaantood wixii halka ku sugan ujeedka shirkeenu safarkeenu sidaas ayuu ahaa wada tashiyan u soconaa waxa la waxaan u tagnay Hiiraan si wanaagsan iyo si guul ay sharaf noogu soo hagaageen soo dhaweyntii maantay lagu soo dhaweeyay dowlad goboleedka Hirshabelle caasimadiisa Jowhar aan ka mid ahayn wafdi hogaaminaya wafdi balaaran oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed runtii waxaan ku sugnaynay muddo 3 week ah magaalada Beledweyne oo aan u joognay consultation iyo talo aan u joognay oo aanu safarkeena soo gabagabeynay saakay intana waxaan u nimiday laba arrimood oo ku saabsan qodobka koowaad oo ah doorashooyinka aqalka sare oo maalmahan la qaban doono haddii ilaahay raad dhawaan ka dhici doono magaalada Jowhar iyo la tashi aan la tashanayno madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle oo maalmahan ku sugnaa muxuu ahaa caasimadan aad iyo aadaan uga mahadcelinaynaa soo dhaweyntii diirhaneed sharaf kale heed dhinacyo badan taabanaysay lalagu soo dhaweeyay magaalada madaxda Hirshabelle aniga iyo xildhibaanadii iyo waftigii ila socday oo maanta halkan ila soo gaaray
saad ogtiiba muddo ilaa 9 bilood waxaan ku maqnaynay gobolka Hiiraan waxaan ugu maqnaynay arrimo shaqooyinkaan ugu maqnaynana adigu geed kastaba ha soo hergelaane hadda meel fiican ayaan ku soo dhaweynay waxa dhimanna waa dhamaystiri doonaa annaga marka waxa dadka Soomaaliyeed iyo dadka reer Hirshabeelle aan u sheegaynaa waxa dadkaan ka dhaxeeya qofna kuma maslaxaynayno qofna kuma masaabaxayno qofna lagu maslaxaymaha dadkaan iyo dalkaan waxaan ka fikiri doonaa nimankayna madaxda ka oo madaxweynaha Hirshabeelle oo loogu sareeyo waxaan ka fikiri doonaa Hirshabeelle yaa u dana Hirshabeelle yaa u shaqaynaya Soomaaliya yaa u shaqaynaya dawladnimo Soomaaliya yaa rabaan ka fikiri doonaa hadii alla Yuusuf Axmed Xagar Dabageed oo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle ayaa tan iyo markii loo doortay madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi waxa uu saldhigtay magaalada Beledweyne si uu u xalliyo tabasho ay qabaan beesha uu ka soo jeedo balse arintaasi u muuqatay in aan wali xal laga gaarin magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle ayaa dhawaan waxa la filayaa in lagu doorto xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku matali doona maamulkaasi Hirshabeelle walow ilaa haatan madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen uusan soo gaarin ama uu soo saarin liiska musharaxiinta u tartamaya xildhibaanadan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya howlgalo lagu xaqiijinayo amniga ayaa maanta laga sameeyay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle wafaahinta warkaasi waxa eegaysa Xamdi Gacal Xasan ciidamada amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa howlgalo lagu xaqiijinayo amniga waxa ay ka sameeyeen qaybo kamid ah xaafadaha magaalada Jowhar gaar ahaan xaafadda Hanti Wadaag oo xalay weeraro baam loo adeegsaday ay ka dhaceen 3 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle ayaa ku dhaawacmay weerar loo adeegsaday qarax kaas oo xalay ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta maamulkaas ciidamada ammaanka ayaa sameeyay baaritaanka waxayna saraakiisha hogaaminaysay howlgalka sheegeen inuu u dhacay sidii loogu talagalay isla markaana ciidamada amniga si wanaagsan ula dhaqmeen dadka deegaanka magaalada Jowhar ayaa dhawaan martigelinaysa doorashada xildhibaanada golaha aqalka sare ku matali doonta maamulka Hirshabeelle Xamdi Gacal Xasan VOS TV xildhibaan Daahir Amiin Jeeso ayaa si kul uga hadlay kiiska Ikraan Tahliil oo hay'adda NISA ay sheegtay inay dileen al-shabaab fafaahinta warkaasi waxa markale la diyaaraa Yuusuf Maxamed Axmed xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo maanta bahda warfidiyeenka kula hadlay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay war dhawaan ka soo baxay hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka ee NISA oo faahfaahin lagu bixiyay in Ikraan Tahliil ay al-shabaab dileen kadib markii ay ka afduubteen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xildhibaan Daahir Amiin Jeeso ayaa qeexay in warka ka soo baxay taliska hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka ee NISA uu yahay mid aan lagu qanci karin waxaana sheegay in loo baahan yahay in loo saaro guddi madaxa bannaan si arrintan baaris dhab ah ay ugu sameeyaan 65 maalmood go'aankii aan sugaynay ee hay'addii Ikraan sargaalad sare ah oo NISA ka tirsaneed aan ka sugayn waxay noqotay shabaab dil lama sheegin shabaab meeshay ku dileen lama sheegin goorta ay u gacan gashay lama sheegin muxuu ahaa sababaha ay u gacan gashay shabaab dil ma dhaafs kuma qancayna marka shabaab dilay shabaabkeeni waa soo hadleen xaqiiqatan kuma qancin kumana qanci doono arrintaas iyada shabaab waa hadleen annagoo og shabaab haddii canug yar oo saqiir oo dawladda u shaqeeyo ay qabtaan inay sawiraan soo bandhigaan dilaan sheegaan inay dileen annagoo og inay dhaqanka shabaab saas u ahaa dabcan shabaabka ruuxooda yaa qaadan waaye in la yidhahdo Ikraan iigaa dilay iigaa u gacan gashay annagana waa qaadan waayne hay-adda dib ha isugu noqoto war bis sareexa ah ee bulshada kacday ee la kiciyay ay ku qanci karaan ha soo saarto runtii arrinta NISA qoraalka ay soo saareen kuma qanacsanin waxaan aan NISA farayaa in wax lagu qanci karo
ay dadka usoo gudbiyaan ma garanayo anigu kiiskan cidda faraha ku hayso oo nuucan u maanadgaraynayso waa garan waaye niisa gabadhaas iidaa lagu tuhmay dadkii oo dhan iiday ku tuhmeen waa inay raatantiis ku soo galo si akhlaaqiyin ah ayaa la siiga bixiyaa waa inay si akhlaaqiyin ah kiiskaas arrintiisa isiiga muxuu ahay ummadda ugula hadlaan ay muxuu ahay wanaajiyaan waxaa weeye ma aha waxa aan baryayno ma aha arrinta oo muxuu ahay niisa aan ka tabanayno iyo qaabka ay kiiskan u maanajgareeyeen ma aha wax aan weydiisanayno ama aan baryayno maaha waa waxaan xaq u leenahay waa inay si bareer ah ay arrintan uga hadlaan ikraan tahliil oo ahayd sarkaal ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa toddobaadkii hore dowladda federaalka Soomaaliya waxay sheegtay in al-shabaab ay dileen kadib markii ay ka afduubteen magaalada Muqdisho inkastoo warkaas ay al-shabaab beeniyeen kadib markii shalay ay soo saareen war rasmi ah Yuusuf Maxamed Axmed VOS TV Muqdisho madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa aqbalay iscasilaadii wasiirka xogeenkii ugu magacaabay wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland Maxamed Faracade ayaa la diyaaray markaasi ku aadan madaxweyne ku-xigeenka labaad mudane Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud Lugadheere ayaa maanta shir gudoomiyay kulanka golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland intii uu shirku socday waxaa warbixin laga dhageystay qaar ka mid ah wasaaradaha Jubbaland sida wasaaradda amniga wasaaradda xuquuqul insaanka iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha markii uu shirku soo gabagaboobay waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Jubbaland Saleebaan Maxamed Maxamuud isagoo ka warbixiyay waxyaabihii la isweydaarsaday intuu shirku socday iyo qodobadii ka soo baxay Suldaan Cabdulqaadir Lugadheere wuxuu ka hadlay arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka wuxuu ammaanay shirka wada tashiga ka dhacay caasimadda Muqdisho iyo go'aanadii ka soo baxay oo ah qaabkii doorashada iyo waqtiga doorashadu ay dhacayso iyo dhammaan go'aanadii ka soo baxay ayuu taageeray kadib waxaa warbixin laga dhageystay wasaaradda amniga wasiirka wasaaradda amniga wuxuu sheegay in amniga Jubbaland uu yahay mid fiican inkastoo ay jiraan dhagarqabayaashii nabaddiidka ahaa falal ayagu ay sameeyeen oo ay rabeen inay maxaa tiraahdaa ku qalgelgeliyaan nabadda dowlad goboleedka Jubbaland taas oo ay ka hortageen ciidamada amniga sida daraawiishta nabad sugidda booliista dhammaan laamaha amniga dhammaan ay wiiqeen dhagarqabayaashii dagaaladii iyo xarbiga ay ka wadeen Jubbaland taas oo mid walbaba loogu tagay meelahoodii ay ka soo duulayeen intaa kadib wasiirku wuxuu warbixin ka bixiyay amniga doorashooyinka la rabo inay ka dhacdo Jubbaland loo xirsaaray guddi qaas ah guddiga amniga la yiraahdo taas oo u diyaar garoobeen inay ka hortagaan fal walba ay maxaa tiraahdaa isku dayayaan dhaqarqabayaashii nabaddiidka ahaa ee al-shabaab intaas kadib waxaa warbixin laga dhageystay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Jubbaland wasiirka wasiir Cadar waxay ka hadashay qoondada haweenka in ay maxaa tiraahdaa beryahan ay wadeen dhaqdhaqaaq ah in gabdhuhu ay helaan qoondada haweenka oo ah 30% intaa kadib waxaa warbixin laga dhageystay wasiirka dhalinyarada ciyaaraha isboortiga inay qaban doonaan shirweynaha gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Jubbaland lagu dooran doono oo dhici doona 6 bisha 9aad 2021 intaa kadib waxaa warbixin kale laga dhageystay wasaaradda caafimaadka oo ka warbixisay inay mar dhow bilaabi doonto dowlad goboleedka Jubbaland talaalkii coronavirus-ka waxaad la socotaan beryahanba waxaa dardar kulun la soo baxay cudurka coronavirus-ka waxaa la keenay talaalkii ugu yaraan 40,000 oo kit oo talaal ah la keenay waxaana la gaarsiin doonaa dhammaan degmooyinka dowlad goboleedka Jubbaland ee xorta ah taas oo awaamir laga soo saaray in shaqaalaha dowlad goboleedka Jubbaland dhammaan ay qaataan talaalka coronavirus-ka madaxweynaha ku-xigeenka labaad dowlad goboleedka Jubbaland
suldaanko soo xiray shirka wuxuu bogaadiyey iyo golaha wasiiradaba waxqabadka wasaaradda amniga iyo ciidamada amniga dowlad goboleedka Jubbaland waxqabadka ay sameeyeen iyo la dagaalanka argagixisada iyo ka hortagga dhagarta argagixisada ay qabteen aad ayuu ugu bogaadiyey golaha wasiirada haddana waxay bogaadiyeen waxqabadka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka waxa kale oo loo bogaadiyey waxqabadka wasaaradda dhalinyarada isboortiga waxqabadka ay wadaan iyo isku tashiga ay ku sameynayaan dhalinyarada bacdama isboortigu yahay isdhexgalka bulshada sidaas laaligeed wuxuu shirku ku soo dhamaaday jawi degan maxaad farcade VOS waa tahay daawadayaal wali waxaad daawanaysaa warka telefishinka caalamiga VOS imikana akhbaraadka caalamka dowladda Mareykanka ayaa cunaqabateyn ku soo rogtay xubno ka tirsan sirdoonka dalka Iran waaxda maaliyadda Mareykanka ayaa sheegtay in cunaqabateyn ku soo rogtay 4 xubnood oo ka tirsan laamaha sirdoonka ee dalka Iran 4 qof ayaa la sheegay inay ku lug lahaayeen afduub muwaadin haysta dhalashada Mareykanka kaas oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Iran ninkani ayaa ka mid ah kooxaha dhaliila xukuumadda Tehran 4 qof ee Iiraaniyiinta ah ayaa bishii Julaay magaalada New York lagu soo oogay dacwad ay ka mid yihiin afduub qorsheysan oo loo geystay wariye aan la magacaaban iyo qof u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha dowladda Mareykanka ayaa ku eedeysay sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka Iran kaasi oo dusha ka hagay howlgalka sarkaalkan ayaa magaciisa lagu sheegay Ali Raisa wararka ayaa sheegay in Farxaan uu xil saaran yahay beegsashada dadka ku nool dalalka Mareykanka Ingiriiska Kanada iyo Imaaraadka Carabta ee mucaaradka ku ah gudahaan waxaan halkaas ku soo gabagabeynaa wixii dalkii daafaca caalamka naga soo gaaray ka daawanayseen telefishinka caalamiga VOS intaan warkan xiga dib u kulmi doono amaan Allah